bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacanda wadayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee siyaasadda Soomaaliya qodobada xilligan wararkeena aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah shirka golaha wadatashiga qaran oo maalintii labaad ka socda magaalada Muqdisho iyo qodobo culus oo maanta laga doodayo waxaan eegi doonaa wararkii ugu dambeeyey shirkaasi iyo guddi ka socda mucaaradka oo ku biiraya qaramada midoobe iyo AMISOM oo ka hor yimid go'aankii dawladda federaalka Soomaaliya ee garoonka aadan cadde kuna hanjabay howlgal joojin haddii wax laga qaban waayo arintaasi iyo sidoo kale waxaad wararkeena ku daawan doontaan mawjado siyaasadeed oo lagu kiciyay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaare qoorqoor oo ka taagan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug qodobadaasi oo dhan ayaan ku faahfaahin doonaa wararkeena waa maalin talaada ah 4 bisha January 2022 u diyaar garoowa qodobadaasi oo faahfaahsan waa hagaag markale kulan wacan aan ku bilaabo wararkeena waxaa maalintii labaad oo xiriir ah xarunta teendhada Afisiyone ee magaalada Muqdisho kulan ku leh golaha wadatashiga qaran ee doorashooyinka kaasoo ay ka qayb galayaan Maxamed Xuseen Roble madaxda shanta dawlad goboleed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir shirka oo shalay furmay ayaa diiradda lagu saarayaa amniga iyo dardargelinta doorashooyinka daahfurnaanta iyo jaangooyinta xilliga la soo gabagabeynayo doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya maanta ayaa la filayaa in golaha wadatashiga qaran ay dood adag ka yeeshaan caqabadaha haysta doorashooyinka dalka sida looga gudbi karo iyo waqtiga rasmiga ah ee la soo gabagabeyn karo doorashada golaha shacabka maadaama horay ay u fashilmeen dhowr jadwalo oo markaasi aan waqtigooda waxba lagu qaban haddaba caqabadaha ugu waaweyn ee doorashada hortaagan isla markaana u baahan in xal loo helo waxaa ka mid ah habraaca doorashada ayaa u socota si aanan jadwaleysanayn waxaana soo badanayay cabashooyinka la xiriira habraaca doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa la soo gabagabeeyay goorsii horeysay halka golaha shacabkana ay weli socoto inkastoo ay jireen dhaliilo iyo cabashooyin hareeyay hanaanka uu kormeerka ka ahaa Roble dood badan ayaa ka timid habraaca doorashada kadib markii kuraasta qaarkood uu ka yimid muran iyo isqabqabsi xoogan shirkan golaha wadatashiga qaran oo sababihii loogu baahday ay ka mid tahay arintaasi lafteeda ayaa la filayaa in xal looga gaaro habraac sax ah oo loo maro doorashada habraaca hadda jira ayaa u muuqda mid maamul kasta uu u fasirtay sidii uu doonayay isla markaana waafajiyay natiijadii uu doonayay in ay doorashada ka soo baxdo waxaana tusaale weyn ah habka xulista ergada iyo xaqiijinta tartan daahfuran oo qof kasta oo daneynaya uu musharax noqon karo taasi oo aanan meelo badan ka dhaqan gelin caqabadaha ay tahay in xalka loo helo ee dhinaca habraaca waxaa ka mid ah soo xulista ergooyinka iyo murashaxiinta kuraasta golaha shacabka guddiga doorashada ayaa marar badan lagu cambaareeyay in ay hareer mareen habraaca loo dejiyay arinta labaad ee u baahan in xalka loo helo waxaa ka mid ah kaalinta gudiyada doorashada ee heer federaal iyo heer maamul goboleed ayaa tan iyo markii ay doorashada bilaabatay u muuqday kuwa aysan hooshooda kala cadayn isla markaana aanan la ogeyn kaalmaha ay kala leeyihiin waxaa aad u muuqatay in gudiyada heer dawlad goboleed ay lahaayeen awoodda inteeda badan iyaguna ahaayeen kuwa go'aanka ka gaaraya natiijada kama dambaysta ah ee kuraasta la doortay gudiyada maamul goboleedyada u qaabilsan doorashada ayaa lagu eedeynayay in ay la wareegeen awoodihii guddiga heer federaal loo igmaday madaxda shirka u fadhiya ayay hadda hortaalaa inay go'aamiyaan kaalmaha gudiyadan iyo in shaqooyinkooda ay kala saaraan waxaa kale oo xal u baahan khilaaf waayadii dambe ka jira guddiga doorashada oo sheegay inay xilkii ka qaadeen gudoomiyahooda inkastoo isaguna uu sheegay inuu weli shaqeynayo arinta kale ee xalka u baahan waa jadwalka gudiyada doorashada ayaa tan iyo 27kii bishii May ee sanadkii hore soo saarayay jadwalo loogu talagalay doorashada oo qabsoomi waayay doorashada oo waqti dheer soo jiitamaysay ayaa marba caqabad hor leh la kulmaysay tan ayaana ka mid ah howlaha horyaala shirka shalay ka furmay magaalada Muqdisho ee ay beesha caalamka taageertay marka laga soo tago doorashada golaha shacabka oo ay caqabado badan ragaadiyeen ilaa haddana lama oga xilliga ay dhacayso doorashada madaxweynaha iyo tan ugu dambaysa oo ah labada deegaan doorasho
heshiiskii September 2020 waxaa lagu heshiiyey in doorashada lagu qabto 2 deegaan doorasho dowlad goboleed kasta, balse ilaa hadda ma jirto hal meel oo ay doorashada ka dhacday oo aan ahayn caasimadaha dowlad goboleedyada. waxaa intaasi ka sii daran in inta badan magaalooyinka kaalmaha labaad ku jira ay ka taagan yihiin qalalaaso amni daro ama caqabado kale oo siyaasadeed. tusaale, magaalada Boosaaso oo loo asteeyay in ay doorasho ka dhacdo ayaa waxaa ka dhacay dagaal ay dad badan ku dhinteen, kaasi oo u dhaxeeyay ciidamada BSF-ta iyo kuwa daraawiishta Puntland. sidoo kale magaalada Beledweyne ayaa waxaa ka socda dagaal salka ku haya diidmo la xiriirta maamulka Hirshabeelle. magaalada Garbaharey ayaanan weli xal rasmi ah laga gaarin, iyadoo uu ka taliyo maamul aanan hoostagin kan Jubbaland, isla markaana guddigii doorashada qaban lahaa ay ku sugan yihiin magaalada Kismaayo, qof ka mid ahna uusan tegin Gedo. waxaa xusid mudan in shirkii May ee madasha la isku raacay qodobo lagu xalinayo khilaafka Gedo, balse wax ka fulay aysan jirin qodobkaasi ilaa iyo hadda. shacabka Soomaaliyeed iyo indhaha caalamka ayaa ku sii jeeda shirka golaha wadatashiga qarankaasi oo lagu jaangooyn doono howlaha doorashooyinka si looga gudbo xiisada siyaasadeed ee ka jirta Soomaaliya. waa hagaag daawadayaal, qaybaha hore ee wararkeena ayaa daawanaysaan. markana khilaaf xoogan ayaa ka dhex qarxay dowladda federaalka Soomaaliya, qaramada midoobay iyo AMISOM kadib markii terminal ay adeegsadaan oo ku yaala garoonka Aadan Cadde ay xirtay dowladda 2 toddobaad ka hor. xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ee UNISOM iyo AMISOM ayaa qoraal ay warbaahinta la wadaageen kadib go'aankaasi ku sheegay inay u hoggaansamayaan go'aanka Soomaaliya. si kastaba, sida ku cad warqad qarsoodi ah, labada urur ayaa si rasmi ah uga hor yimid go'aanka dowladda federaalka ayaga oo ku dooday in xiritaanka terminalka Mofcon ee xilligan uu halis gelinayo diblomaasiyiinta iyo askarta adeegsada garoonka ee qaarkood wata hubka. warqad diblomaasiyadeed oo loo yaqaano verbal oo UNISOM iyo AMISOM ay u direen dowladda federaalka ayaa lagu yiri: waxaan ku baaqaynaa in si degdeg ah dib loogu bilaabo howlgallada terminalka si loo xaqiijiyo sii wadida iskaashigeenna iyo in si fudud loo fuliyo waajibaadkeenna. UNISOM iyo AMISOM ayaa waxaa Muqdisho ka jooga tiro shaqaale oo markaa la taaban karo, kuwaas oo aad u adeegsada garoonka Aadan Cadde. warqadda loo diray dowladda federaalka ayaa lagu sheegay in shaqaalaha caalamiga ah oo loo wareejiyo terminalka ay adeegsadaan shacabka uu abuuray ciriiri, isla markaana shaqaalaha qaramada midoobay ee AMISOM ka dhigaysa kuwo durbadiiba la aqoonsan karo oo noqon kara bartilmaameed, taasi oo sidoo kale halis gelinaysa shacabka. qaramada midoobay iyo AMISOM ayaa sidoo kale ku dooday xiritaanka Mofcon ay ka dhigan tahay in diyaaradaha rakaabka iyo xamuulka ee labadan urur ay culays ku noqon karaan, dibna markaa u dhigi karaan diblomaasiyadda rayidka ee garoonka Aadan Cadde. kadib markii dowladda federaalka ay xirtay terminalka loo yaqaano Mofcon, waxay sheegtay inay la wareegi doonto isla markaana geyn doonto shaqaale amni oo Soomaali ah, ayada oo ku eedeysay kuwa caalamiga ah inay dhinac maraan nidaamka amni. si kastaba, UNISOM iyo AMISOM ayaa u sheegay dowladda federaalka inay raacdo heshiiska loo yaqaano Soma oo ay horay u wada galeen, isla markaana lagala tashado ka hor inta aanan shaqaale Soomaali ah la geynin terminalka. heshiiska Soma ayaa dhigaya in ayada oo aanan la ogeyn cidda sameysay xarunta ay qaramada midoobay markasta si toosa u maamuli doonto. ma cadda haddii dowladda federaalka ay ka laaban doonto go'aankeeda, ayada oo warqadda qaramada midoobay iyo AMISOM ay direen laga dheehan karo hanjabaad ah inay joojin doonaan howlgalladooda haddii aan dib loo furin terminalka. UNISOM iyo AMISOM ayaa dalbaday kulan ku aadan arrintan oo ay la yeeshaan dowladda federaalka Soomaaliya. qaybihii ugu dambeeyay ee wararkeena ayaan soo gaarnay. gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug Maxamed Nuur Gacal ayaa ciqaabay ilaa 6 xildhibaan iyaga oo laga joojiyay kulamada qaar, halka la sheegay in 2 bil aanay qaadan doonin wax guna ah. qoraal ka soo baxay xafiiska gudoomiyaha golaha Maxamed Nuur Gacal 30 December sanadkii hore ayaa sida markaa loogu sameeyay xildhibaanada kala ah Cabdullaahi Xirsi oo ah gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha, xildhibaan Axmed Cabdirisaaq, xildhibaan Cabdinaasir Aadan, xildhibaan Cabduqaadir Bariise, xildhibaan Mursal Maxamed iyo xildhibaan Daahir Shiiqow. Cabdullaahi Xirsi Maxamed oo ah gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Galmudug oo kamid ah liiska xildhibaanada uu Gacal ciqaabay
ayaa isna dhankiisa ku tilmaamay tallaabadan mid sharci darro ah. xildhibaan Axmed Yuusuf oo qayb ka ah xildhibaanada laga joojiyay fadhiyada iyo gunnada ayaa sheegay in tallaabada uu qaaday gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug ay meel uga dhacayso kooramka hanaanka wax ansixinta iyo xitaa doorashadii guddoonka. xildhibaan horey uga tirsanaa baarlamaanka Galmudug Garaad Yuusuf ayaa dhankiisa sheegay in arinta uu gudoomiye Gacal sameeyay ay tahay mid khatar ku ah dowladnimada, isagoo inta raaciyay baarlamaan waxa uu ku dhaqmaa xeerar iyo hanaan u degan, laakiin sida uu gudoomiye Gacal u dhaqmay waa sida fulinta oo kale oo qofka korjooga uu go'aan iska gaaro. waxaa lagu tilmaamay mid madaxweyne qoorqoor lagu kicinayo mawjado siyaasadeed si uu uga soo markaa dabco fikirkiisa u dhawaanshiyaha madaxweyne Farmaajo, iyadoo xukuumadda lagu eedeeyay in mawjadaasi abaabushay. waa hagaag halkaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa wararkii ugu dambeeyay ee siyaasadda Soomaaliya. inta ku kulmayna wararkeena dambe waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.